بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan dhageystayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada habeen walba ayaad xiliyadan oo kale ka maqashaan radio Al-Furqan caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah in ka badan 10 askari oo dawladda federaalka ah looga dilay weerar galabta ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe xilli iyaga oo kolonyo ah ay socod ku jireen marka laga yimaado dhimashada maxaa khasaare ah oo gaaray kolonyada xog iyo wareysi ayaad maqli doontaan caawa qodobada dhuuxa waxa kale oo kamid ah ciidamo kamid ah kuwa Jubbaland oo lagu dilay qarax maanta ka dhacay baar Sanguuni faahfaahinta dhacdadaas ayaad ku maqli doontaan dhuuxa wareysiyada inta uu socdo barnaamijka qodobadiisa waxa kamid ah howlaha zaka qaybinta wilaayadka islaamiga ah oo wali deegaanada qaar ka socda waxaan idin soo gudbin doonaa wareysiga mas'uul iyo dareenka dadweynihii zakada la siiyay qaarkood muslimiintu waa jir qura oo hadii mid xanuunsado uu ka kale damqanayo caawa waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan muslimiinta Turkistaanta bari oo wajahaya dhibaatooyin aad u adag qodobada barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxa kale oo kamid ah dhalinyaro badan oo Muqdisho looga qaaday in shaqo iyo waxbarasho laga siinayo dalka Qatar oo markii halkaasi la geeyay loo tababaray inay ka qayb qaataan dagaalada Yemen iyo Suuriya haddaba sidee bay arrintan u arkeen dhalinyarada waxaan idin soo gudbin doonaa qaarkood oo ka soo dhuuntay dalkaasi Qatar codadkooda xubinta murtida ayaan meesha ka marnayn waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada في عتاب إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال وهجاج dhageystayaal meel walba aad joogtaan waxaan hawadeeda ka leenahay mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aynu ku bilowna galabta weerar dhabagal ah ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa qalimow iyo gololey oo ah deegaano u dhow degmada Balcad gaadiid kolonyo ah oo ciidamada dawladda federaalku ay saarnaayeen ayaa halkaasi lagu galay saddex kamid ah waa la gubay mid kamid ahna mujaahidiinta ayaa isaga oo badqaba la wareegay kadibna halkii ka kaxaystay meedadka in ka badan 10 askari ayaa daadsanaa galabta casarliiqi goobtii kamiinka uu ka dhacay ee lagu weeraray ciidamada dawladda federaalka ciidamadan waxay ka soo baxeen Jowhar waxayna ku wajahanayeen Muqdisho iyaga oo sii mari lahaa degmada Balcad haddaba waxaan wareysanay mid kamid ah dadka deegaanka ilaahay mahadle horta aniga golleeyaan deganahay saakayaanka soo dheelmaday waa gartay elboq meel yiraaho aan beer ka joogay beerta markaan joogay xilliyeed 7 saac ay taayaan waxaan ka war helay daanga dhacaysa gagagagagagagag wax dhacay ayaab xabadkan dhulka dhigtay waa gartay haddaan madaxa soo qaaday oo madaxa kor soo taagay hal cadabele iyo hal saarif iyo hal hoomey aan indheega qabteen oo niman iska waxaad u qabtaa in fiinta lagu daadsaad u malayso in fiinta lagu daadshay maxaad ula jeedaa waxaan ka wadaa anigu markaan ag tagi maagay nimankii oo fiinta laga daadshay dhiigooda dhiig inuu ahay inuu fiinta dhiigoodaan u arkay inuu ahay iyo baashi qabowday oo waxba aysan joogin oo masala ahaan waxba aysan taagnayn gaari waxaan soo istaagay gaari aan nafta aan boodka aan ka fiiriyay gaari dhaqaaqayo waa gartay oo waxa wata rag walaayada kamida ay wataan oo Allahu akbar ay shiidahayaan oo meena ay tahay waa gartay waxaa indhaha saaray oo meesha yaaleen gaari saarifa hal cadabele iyo waxaa yaaleen baawur kale oo meesha ku basbeelay ma garatay waa gartay marka ma qaraxyo ayaa dhacay mise dagaal baad maqlayseen rasaas anigu xabada dhulka xabadka ka dhigtay waxay ahayd aniga beerteeda anigoo joogo ee fadhiya xabad bilaabatay hadii xabad bilaabatana waxay ahayd mid foolka foola maana wax qaraxa ama miina marka hore kama aysan dhicin waa gartay hadee dhacday markii xabada qaboobsatay hadee ilo xabad socotay qof bilaaadana meeshaas soo ma istaagi karin haddaan soo istaagay xabadiyo qayoosato ragiyo dhaqaaqaayo hooshoodan wato
oo Allahu akbar dhahayo hoomay meesha taagan masalan ay ku jirto ila tahay nimankii ay wateen oo caloos inay wateen ila tahay Allahu akbar igoo dhahayo dhaqaaqeen maxaad indhaha ku aragtay marka gaadiidka laga yimaado markii cad hoomay iga tagtaa indhayga waxaa saaray gaari afsaar tu in loo yahay aan qarax ku dhacay ee sila kala sheegi kara muuqaalkiisa aad iyo aad igu liita laakiin waxaan aqoonsaday gaari saarifa iyo waxaan aqoonsaday gaari kale oo cadibila waa gartay beeraley badanaan aniga kulli beertay markaan ka soo baxayo inaan soo baxayo la arkaa beeraley kale dhinaca kala joogta ka soo baxaan beeraley bisa meesha degan soo beeraley leewa meesha aan deegaan guri kuma yaalo maxaad aragteen marka oo meydad ah meydad fara badana ii muuqday waxaa ii muuqday niman badan oo horta oo aqaanayo xasan niman aan wajiyadooda xataa aqaanayo xilligii la joogo ceel geelo la joogo ismaan u taalay oo ma imaajireen oo nimankii laga raacday ceel geelo ku jireen oo ciidanka dawladda oo ciidanka dawladda isbaarana u aali jirtay ceel geelo oo niman badan ahaayeen 4 iyo 5 ka aqoonsaday nimanka meeshaan ku arkana tumanay waa ka badnaayeen oo weerarka lagu dilay weerarkaasna iyagoo socdaan oo kaleyaana ay iswaafaqeen dagaalamaba iyaga maba qaadinbo oo wajiyaaba iyaga loo galay haddii la galana xabadda socotana xabad walaayada ka socotay ila aheedo xabad loolagula dagaalamayo maba ahaanbo waa gartay marka hadda xaaladda ka waran meesha maasha Allah hadda xaaladda waxaa hadda joogaan kala hadlaa beerteeda dhexdeeda waayo ma garan waa gartay waxaan arkay kabacdi oo hadda indhayga aan saaray wixii ka dambeeyay inuu cadibilo gurmud ahay in kala ma aqaano cadibila yimid asigoo socdo oo buuxo oo waxba ka dhinin oo daadaadahayo ciidan ku jiro haddoo yimid aniga waa iska orday waxaan tagay beertaan jooga beerka saddexaad haddaa tagana waxaa maqlay qarax weynin badanaa maqlayo oo iyo qiiq arkay markuu yimid cabdibilihii gurmudka ahaa markuu yimid cadibili gurmudka waxaan arkay hadaan ka tagay waxaan shiriyaal ma lagu imaan dadka ma afartoo qalo ila joogto meeshaas kala oradnay wax daqiiqada ka bacdina waxaan maqalnay qarax oo weynin badan hadaan maqalnay aniga toosaan u baxnay waana laga shakiyaan islaana shacab masaakiin aan nahay haddana markaan beledka soo galay waxaa leeyahay cadibili hal xaba ka meerin hal xabo hal ka fiiga mala halka cadibili laakiin adiga weli indhaha kuma arkin indhaha waxaa hadii nafteeda la xararay cadibili soo ordaayo shacabna waa taqaana aluusta shacab ma yaqaanaan dadkan way iska laayahayaan waana ka kuda anigu meeshaan ka kuday ciidamadan marka dawladda federaalka ee dhabaha loo galay iyagu halkee u socdeen anigu haddaan meel hebre u socday dhima laakiin wejigooda xamar ku aadanaa xamar muqdisho ee aadan kulli muqdisho u jeeda afkooda balcad u jeedi kolonyo ayay ku soo baxeen hadday ku soo baxeen 3 baabuur meesha uga tageen hal baabuurna waa laga qaato ragga uu ka qaatay way dadka deegaanka hadii aad tihiin seed u aragtaan weeraradan ciidamada dawladda federaalka lagu qaado aad bay ugu soo badanayaan wadadaas seed u aragtiin maasha Allah horta anigu waxaan u aragnaa dadka deegaanka hadaan nahay dadkana waa iska dhibanaayeen culays baa haystay isbaaraha horteena aali jirtay ilaahay baa naga qaaday naga dul qaaday iyo ragga walaayada oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo garab siiyay haddana waxaan u isleeyahay kor Allah ka dhigo maasna waxaan kugu sheegay horta tahay kawaankii caluusta iyo gaalada inay taan u filaa dawladda markaana ku 4 maran arkaayo ma garatay waa markii afraad oo aad la kulmayso iyaga oo markii afraad la kulmaayo waaye وانا هلكم ميلو لو هلبو واليغال في عتاب إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال ولي برنامج كدوحة